kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan waxa idin soo gudbinaynaa sheeko jacayl oo murugadeeda aad u weyn tahay labada kabdhood oo idin muuqda waxay qaadayaan warqad kadibna waxay warqadaasi ay dul saarayaan buugga wiilkaas uu akhrisanayo iyagoo u godla inay wiilkaas soo jeediyaan si kastaba ha noqotee inta badan dumarka waxay ku hogaamiyaan ragga bohol caashaq kadibna laga yaabaa in ay uga baxaan wiilka warqadda ayuu furayaa kadibna wuxuu arkayaa waxyaabo yar oo iyagu ay cunayeen waa uu la yaabi kadibna wuxuu duuduubay warqaddii waa uu tuurayaa akhriska buuggiisa ayuu sii wadan doonaa isagoo rajo ka qabo inuu horumar gaaro balse maalinka dambe maxaa dhacay waa isaga hareeraha firfiiranaya ee sugaya gabdhihii kadib buugga ayaa soo qaaday waa uu akhriyay gabdhihii way imaadeen isla goobta gabdhaha waxay markaas fadhiisanayaan meel asaga u dhow oo waxay markaasi isku yihiin kuwo is arki kara mid ka mid ah gabdhaha ayaa eegaysa wiilka balse waxaa dhacaysa in ay isha isku qabtaan si kastaba ha noqotee gabdhaha ka mid ah ayaa ilaawaysa buugga ee meesha uga tagaysa waxayna arrintaasi u istaagaya wiilka ee buugga halka ka qaadaya kadibna waxaa ka daba tegaya gabdhihii asaga oo leh buug ay iska tagteen hase ahaatee dharbaaxde ayaa looga bedelaya kadibna wuxuu siin doonaa buuggooda kadibna goobta ayuu ka dhaqaajin doonaa asaga oo hadlin maalin maalmaha ka mid ah iyadoo asxaabteeda la fadhida waxaa soo maraya isla goobta oo mid ka mid ah wiil yaqaano oo gabdhaha la fadhiyo kadibna wuxuu oranayaa balkaale lana sheekayso oo iska degaya meel gooni ayuu fadhiisanayaa hase ahaatee gabadha in ay murugooto waxay dib u soo xasuusan doontaa qaabkii ay u gashay kadibna waa u tegaysaa iyadoo raaligelin siin doonta hase ahaatee wala joog fiican ayay qaadan doonaan taasi waxay jacayl ku dhalinaysaa wiilka ugu dambayna waxaa dhacaysa inuu haddana meel kale ku sugo markuu meeshaas ku sugo waxay gabadha u keeni doontaa saaxiibkeeda ay si dhabta u jeceshahay iyadoo u sheegi doonta wiilka in ay markaasi wiilkani isjecel yihiin oo uu markaasi isbaran doonaan waa saaxiibkay ee baro adna waa gacaliye ee baro ay markaasi hadalkeeda ku soo gabagabayn doontaa halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa qisada murugada lahayd ee wiilkaasi qabsatay gabadhaasna ee markaasi u geysatay waana mid ka mid ah qisooyinka jacayl ee uu murugada badnaa